waxaan idin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maadsantiin waxaan rabaa in la iskula xisaabtamo maxaa la qabtay ma rabno dawladnimadu inay ahaato sidaan hore u sheegay kuraas bedelaysa ma rabno dawladnimadu inay ahaato dad Soomaaliyeed oo raadinaya kursi siday ugu munaafacaadaan dawladnimadu waa inay ahaato madax dareensan dareenkii gabadha halkan soo istaagtay ay qabto ogol in la isla xisaabtamo aan aqbalayn laaluush in la qaato aan aqbalayn in qof ajnabi uu ku yeeriyo danta Soomaaliyeed wixii aad ka dhihi lahayd markuu isagu ku sheego madaxnimadu waa qof madaxa oo aaminsan fursadda aad kula kulantay qofka ajnabiga oo dal kale madax ka ah waxay tahay inay dadka Soomaaliyeed ku igmadeen inay aad la kulantay macnaheedu waxay tahay kaliya waxaad gudbi kartaa fariinta ugu wanaagsan ay ummadda Soomaaliyeed ku soo dhiibteen madaxnimadu waxay tahay inaad aqbashay inaadan milkiile ahayn oo mas'uuliyad ay ku saaran tahay inay tahay inaad dad u adeegto oo markii aad aqbashay inaad madax noqotid waxaad aqbashay inaad adeegan noqotid mashruucan loo maleeyo marka qofku inuu madax noqdo inuu shacabka iska weynaysiiyo waa in loo gartaa dadka halkan fadhiya waa khasab inaan u soo dhawaano oo dhageysano kan naxna dareenkooda haddii aanan ka naxayna annaga keenna wax ka qaldan yahay waa inaan gees uga baxno sidee marka mashaariicda waaweyn aan rabnaan u filina mid waa arrimihii dhaqaalaha si dhaqaalaha loo kobciyo marka waxaad u baahan tahay dunidu inay kuu timaado si dunidu kuugu timaado marka waa inaad leedahay nidaam siyaasadeed oo lagu soo ordi karo tubta labaad ee tan dhaqaalaha soo xigto aan ka shaqeyno waa tub la yiraahdo tubta siyaasadda loo dhan yahay taas marka waa aragti ka turjumaysa boqolka sano soo socota haddii Ilaahay yiraahdo macnaheedu waxay tahay shaqo walba oo hore u dhib badnaatay in la dhammaystiro aasaaskeeda in la jeexo waa maxay macnaheedu waxay tahay waa in la helaa wixii ummadda Soomaaliyeed isku hayn lahaa nidaamkii isku hayn lahaa nidaamkaasi waa maxay dastuur dhammaystiran oo dadku wada ogol yihiin siyaasad dhammaystiran oo ka turjumaysa gabadhaas halkan timid markay rabto inay mustaqbalka madax noqoto xisbiga siyaasadeed ay geli lahayd ama furan lahayd sharci doorashooyin oo ay u imaan lahayd ay qayb ka noqon lahayd nidaam doorasho oo ku salaysan in dadka Soomaaliyeed ay cidda ay dooranayaan ku doortaan aqoontooda dawlad laguma dhisi karo qabiilkeeta marka rabto inaad dunida la tartantid duniduna ay bilowday inay aqoon isu dhoofiso aqoonna kala iibsato annaguna aan taaganahay qarniga 21aad laakiin wali aan u dhaqmayno sidii qarniga 19aad waxay tahay marka inaan sameeyno shuruuc dhammaystiran ama aado dastuur ama aado doorasho ama aado asxaab ama aado sharci cadaalad dalkoo dhan ku soo dabaala waxaan idin sheegayaa ugu yaraan 60% ama 70 shaqadaas oo dhan waa soo dhammaystiran waxay u baahan tahay kaliya inaan Soomaali soo hordhigno ay ka heshiiso dastuurka shantiisi cutuba ugu horeysay waa la dhameeyay afarta ku xigtana waxay maraysaa meel fiican shanta ugu dambeysana waxa u dhiman kaliya inay Soomaalidu ka heshiiyaan macnaheedu waxay tahay waa inaanan ka baqin su'aalaha waaweyn oo dadka dhalinyarada u dhamaystiraya mustaqbalka inay dareemaan fursad dawladnimo arrinka saddexaad oo aan ka shaqeyno waxa la yiraahdaa adeegyada bulshada dawladdu waxay sideedaba dawlad ku tahay inay shacabka adeeg siiso
inay iskuulo leedahay inay isbitaallo leedahay inay jidad dhisto inay buundooyin dhisto inay shaqo abuurto inay dadkeeda u gurmo karto inay waxbarasho siin karto inay dunida albaabaheeda u furi karto dawlad marka hal iskuul aan lahayn ama hal isbitaal oo iyadu ay jeebkeeda ka bixisa aanay lahayn sida kaliya oo ku fahmi karta inay dhibaato qabto waxay tahay marka shacabka Soomaaliyeed mana aaminayaan mustaqbalka fog haddaanay ka helin dawladda adeegga ay ku leeyihiin dawladdiina waxay bilowday inay iskuulada la wareegto isbitaalada la wareegto jidadka inay dhisto dawladdiina waxay bilowday mashruuc la yiraahdo isxilqaan oo daafuray madaxweynaheena oo lagu bilaabay in madxafkii maktabadii tiyaatarkii qaranka taalooyinkii ama xawataako ama dhagaxtuur ama sayid maxamed kulligood lagu bilaabay hadda ama la bilaabi doono in sanadkay barka aan 2 sano soo socoto hadii ilaa yiraahdo lagu dhameystiro xoog iyo xoolo Soomaaliyeed shaqaalaha wasaaradaha maalin walba iyo usbuuc walba wasaaradaha jadwal ay leeyihiin mid kamid ah ayaa u shaqo tagta si ay isxilqaan ugu soo dhisaan sanadka soo socda bilowgiisa waxaad u imaan doontaan haddii ilaahay yiraahdo dhismayaal bil dhammaaday oo tiyaatarku ugu horeeyo oo maktabadu ay ku xigto oo madxafka qaranku ku xigo macnaheedu waxay tahay dawladdu waa inay adeeg bixisaa adeeg si ay u bixiso waa inay dhaqaale haysaa dhaqaale si ay u hesho waa inaan soo marnaa shuruudihii adkaan idiin sheegay inta shuruudahaas aan soo dhamaystirayno oo dawladdu ay ka yeelanayso miisaaniyad dhab ah waa inaan isxilqaan ku sii shaqeynaa waayo meel ma fadhin karno arrinka afraad waa arrinka la yiraahdo wax ka qabashada amniga dalka si amniga dalka looga qabto marka wuxuu u baahan yahay in la fahmo waxaanu nimid annagu waxaanu nimid ciidan aan la ogeyn tiradiisu intay tahay uu taliyuhu ka markhaati yahay aan la ogeyn meeshay kala joogaan aan mushaar badankood qaadan waxaan bilownay inaan tirino tayeyno mushaar siino halkan heshiisyada aan galnay waxaa ka mid ah sida aan xerooyin ugu dhisi lahayn u qalabayn lahayn si dawladda Soomaaliyeed sanadaha soo socda ay u leedahay ciidan tirsan tayeysan tilmaaman oo toosan oo taliyahooda ka amar qaata sababtoo ah dawladda Soomaaliyeed ayaa siin doonta mushaarkooda haddii ilaahay yiraahdo intaas waxaa noo dheer wax la yiraahdo siyaasad arrimo dibadeed oo qoto dheer waxyaabaha ugu badan oo aan la kulannay waxay tahay ma aha sida aan u naalno iyo sida dalkeena aan u duminay laakiin waxa ugu badan oo aan la kulannay oo aan weli ku dagaalamayno in la bedelo waxay tahay sidaan u bedeli lahayn waxaan la ka aaminsan yahay waxa kala laba ah waxa dadka Soomaaliyeed iska aaminsan yihiin ee waxa ay dunidu naga aaminsan tahay maadaama uu nagu dhacay qaran jab waxa ay keentay qalbi jabkaasina waxa uu keenay qaawanaan qarannimo qaawanaantaasi waxay banaanka soo dhigtay ceebaheena sababtaadu maqlayso waxa isdagaalsan aan heshiisayn culimada ama dhalinyarada ama ganacsatada ama haweenka Soomaaliyeed oo laf dhabarka ummadda Soomaaliyeed ah sababtu waxa ay tahay intaas oo dhan oo la isgeeyay ceebteeda waxa asturta hal wax kaliya inay jirto dawlad xoog leh quwad leh laakiin aan qabyaalad ku salaysnayn iyo qof raadinaya inuu isagu qawleysto
laakiin dawlad qarannimo xambaarsan oo ilaalinaysa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed heshiiska Soomaaliyeed meesha laga raadinayo marka ugu horeysa marka waxay tahay soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed dariiqa ugu sahlan ee lagu soo celin karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxay tahay in la helo dawlad u adeegta iyaga ama jidadka la dhisaayo ama isbitaalada la wareegayo ama iskuulada la wareegayo ama maxaabiista meel walba laga soo deeynayo waxaan idin ballan qaadayaa qabiil soo deyn kara inaanu jirin waxaan idin sheegayaa halkan inaadan sharaf ku yeelanaynina haddaanay jirin dawlad sharaf leh oo dalkiina joogta hadafka dawladnimo iyo doodayda marar badan Soomaali waan u soo bandhigay inta aan idin sheegay ma ahan inaan anigu idin sheegay kaliya wasaarado walba iyo hay'ad walba oo xukuumadda ka tirsan usbuuc walba shir bay leedahay ka horeeya golaha wasiirada mid walba hadaf bay leedahay ku salaysan wixii aan idin sheegay shir walbana aniga fadhiya afartaas heykalo waaweyn wasiirada iyo wasaaradaha iyo ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha hay'adaha kale oo madaxa bannaan kulligood waa fadhiyaan usbuuc walba macnaheedu waxay tahay wasaarad walba waxa la garanayaa waxa lagu la xisaabtamayo hadda iyo inta laga gaarayo waqtiga 2020 oo ah meesha ay ahayd 4 sano madaxweyne Farmaajo loo igmaday waxa intaas dheer marka shaqadaasi waxay leedahay qaab loo daba galo oo xafiiska ra'iisul wasaaraha yaala oo madaxweynuhuna uu og yahay waan ognahay wasaarad waliba meesha ay joogto waxaan rabaa inaan idin sheego waan rabaa hortiina inaan ka caddeeyo xoog baa la geliyay waqtigaas isaga aan dalka joognay inaan soo gaarno inaan leenahay hadaf qoto dheer ku salaysan oo dunidu ay aqbasho inay hal albaab ka soo gasho hadafkaasi wuxuu u baahan yahay in laga dhabeeyo si looga dhabeeyo marka waxaan rabaa inaan qeexno waa maxay dawladdu waa idinka dawladdu waa shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa marka dhaqankii aan ku soo daalnay oo ahaa in mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhexdhexaad laga noqdo in dariiqa khaladka iyadoo lagu socdo wali la aamuso in dhexdhexaad lagama ahaan karo masiirka ummadda Soomaaliyeed wiilashii gabdhaha soo koraya iyo kuwa naga dambeeya dunidu waxa ay maraysaa in caruurtooda dhalan doonta 100 sano soo socota ay dhaqaale meel u sii dhigaan annaguna waxaan wax barasho siin la'nahay iyo caafimaad kuwa hadda noo jooga sababtu waxay tahay waxa la aaminsan yahay in madaxweyne haddii la doorto ra'iisul wasaare uu magacaabo xukuumad uu sameeyo in dalku barwaaqo galayo dawladdu waa annagoo iskaashanay waa gabar Soomaaliyeed oo lagu soo koriyay wadaninimo ku barbaartay wax ku soo baratay iyadoon dalkeeda tagin u taagan inay dhakhtar noqoto dalka ku noqoto isbitaal dhista waa sheekh Soomaaliyeed oo yiraahda aniga og dalku inuu barwaaqo galaya ummadana ku baraarujiye waa oday Soomaaliyeed oo dhalinyarada yiraahda iska daaya qabyaaladda iyo laaluushka waa hooyo Soomaaliyeed oo tiraahda annaga soo aragnay dariiqa xumaa ma yeelayno qablayaal iyo calooshoodu shaqaystayaal dawladnimadu waa Soomaali tiraahda Soomaalinimadan rabnaa
دولة نمدو وصومالي ترى وكود دال نسيد هراء وحن ربنا شرفتي كرامة ومد الصومالي ده نسوي عليه أنا جو آد وقدرين هيا إن تهين جاليته عندي بدك أركي تن يسوق دوبا هذا أنا وحن ربنا إن حساب جلسان دلكي نمحا كعن كجيسة تنسيد بلوغ لسه أنت أنا جو أنجوجنو حكمك وحن دين بلن قاضي يا إن أنا نقبل الدونين إن العبسيو إن أنا نقبل الدونين طريق صح ده أنا لكل حيو إن أنا نقبل الدونين إلا يرادو نلاش قيس تهدي كلا وايد كردينا أنت أنا جو مدحض النهاية أنا جو قاد لا يكيجا يكن مدحوينها وحن دين شيء دونا شرفت أن رادين إن كمر رادين إنه قبليال وعن كرادين إن شعب كصومالي دو ما تنتهي